qurba joogta bahda warbaahinta sheekafaneedka Soomaaliyeed ee Manafai oo la qoray 40 sano ka hor ayaa tilmaam guud ka bixinaysa habdhaqanka qayb ka mid ah bulshada waxana si gaar ah ay u muujinaysaa isfaham darrada dhalinyarada iyo waalidiinta saameynta dhaqamada aan ku wanaagsanayn bulshada dhexdeeda sida waxyaabaha maanka dooriya guurka qasabka ah iyo lahjadaha kala duwan oo ay adeegsadaan bulshada Soomaaliyeed ka qaybgalayaasha bandhigga sheekada Manafai ee uu qoray Professor Maxamed Daahir Afrax oo ah gudoomiyaha Akademi Goboleedka AGA ayaana bogaadiyay ahmiyadda sheekadan iyo kaalinta ay ku leedahay horumarinta afka hooyo waqtiga ama milayga ay qisadu sawirayso sheekadana la qoray waa 1979 ilaa bilowgii 80-nada meesha ay sheekadu ka dhacayso waa xamar oo joogta abbaara 1979 ilaa 80 xilligaas oo magaalnimada Muqdisho maraysay meeshii ugu sareysay ee ay mar gaadhay kadib se nasiib darro laga soo riday Manafai waxayna hor keenaysaa sawirada Muqdishadii hore waxay dadka xusuusinaysaa da'da cusubna baraysaa sida ay u ekaan jirtay Soomaaliyadii burburtay runtii waa sheeko mar madadaalo ah mar waa dugsi marna waa duureed oo waxaan ku arkaynaa dhaqankii aynu soo marnay iyo dalkaynu siduu soo ahaan jiray xaaladdu siday ku socon jirtay iyo waxyaabihii ka qayb qaatay burburka oo ay ka mid tahay markay ummaddu macsida banaysato ee danyarkana daryeeli waayo ee hantida guud la iska daldasho inuu dalka iyo dadku ay halis galayaan ay sheekadu tibaaxaysaa waxay ka hadlaysaa mashaakilka bulshada haysta waa nooca muxuu ahaa sheekafaneedada ijtimaaciga ee arrimaha bulshada falanqeeya waxay tilmaamaysaa cudurro bulshada ku jira oo u baahan in wax laga qabto dadkay ku baraarujinaysaa waxaa arkaysaan wuxuu noo soo bandhigay dhaqan naga guuri lahaa dhaqan hadda laga soo tagayo oo mujtamaca dhaqanka waa ogsoontihiin wuxuu la socdaa koritaanka bulshada la socdaa bulshada hadba siduu dhismayo dhaqaalaheeda isbedelada ku dhacaya aqoonteeda dhaqankana waa raacaa maartay waa la soconaa maartay waxaa arkaysaa guurka uu ka sheekeynayo gabadhan Manafai iyo reerkeeda walaalaheeda aabaheeda in yar haddaan ka soo qaadno xigmadaas oo dhan waxay ku soo fariisanaysaa musbax mininkaaga u baahan min jadoo malageey gudoomiye ku-xigeenka AGA xildhibaan Maryan Cariif Qaasim ayaa tilmaamtay in muhiim ay tahay ilaalinta afka Soomaaliga sheekadan ay door weyn ka qaadanayso arintaasi qisada Manafai waa sheeko xariiro u qoran hab casri ah oo haddana cilmiyeysan waxaa la gordaaniyey maalin ay hadda ka soo wareegtay 40 sanadood oo la rabay in bulshada Soomaaliyeed lagu geesinimo geliyo inay afkooda ku hadlaan wax ku bartaan waxna ku qoraan ayagoo weliba afkooda hooyo كفارية كنا فرحسن محيدين معلن عبد الله